hooyo Soomaaliyeed ahay wiil Soomaaliyeedna waayo yaa hooyo aminkaygana ma sugnaani xaal gurigayga ma hooyin habeen horena gurigayga uma hooyin inkastoo dambiiliyay falkan geystay uusan dhacdadan foosha xun ku metelin qaranka ama cid kale haddana hooyo Firdowsa oo si dirqi ah ku badbaaday iyo wiilkeeda Cabdisalaan oo dhibka la kulmay waxa ay qabaan tabasho ah in lagu dhibaateeyay shaarka qaranka loona adeegsaday hub xoog iyo waqti ay xaq u lahaayeen in iyaga lagu ilaaliyo hooyo anigoo oo sidaan markaan arkay nimankan labada nin oo hubaysan markaan arkay baan aniga halkan ayaan jiiday daaqadan furtay shabaqana meesha iga dhigana shabaqana baxsanayay waana qaylinay ugu aaminsanayay xabadaas meeshaas ku dhacday oo soo riday waa dhacdo xanuun badan hooyo Firdowsa oo ah danyar halgan adag ugu jirtay korinta 3 caruur oo ay kali ku tahay kuriimadooda aabahoodna uu la xanuunsan yahay xanuunka dhimirka waxa xilli saqbar ah gurigeeda xoog ugu galay askari la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidanka dawladda federaalka kaasi oo ugu dambeyn kufsaday wiilkeedii curadka ahaa cadadaas waxay ahayd habeenkii sabtida oo ay ahayd bisha 12 taariikhda anoo gurigeyga jiifo 8 saac tahay habeenimo aan lagu soo weeraray laba nin oo iskarta dharka militariga xiran hadday soo weerareen aniga shanqadhaan maqlay haddaan maqlay neecla yaraan haystay waa ifiyey haddaan ifiyey shanqadhi waa la joojiyey aan jebinayay daaqadii baan ii soo fuqday aniga tan yar oo markaa aan ii soo kacday dirshadaan kala booday intaan dirshadii kala boodin oo meesha aan fujinayo waxaa dhacday xabadii ugu aaminsiinayo banaankuuna taagan yihiin labada iskari banaankii taagan yihiin xabadii la soo riday oo lagu aaminsiinayo waan aamusay markay xabadii dhacay tiri ee meesha qaac tiri asigadeedii soo daadatay ana meeshaan aniga gabadhii ka boodnay markaan arkay inaan waxba i gaarin aan gabadhii la cararay daaqadan aad arkaysaan ayay hooyo Firdowsa kala soo baxsatay gabar ay dhashay oo 8 sano jir ah oo ay u arkaysay in iyadu ay kaga nugushahay dhibka dhici kara wiilasha markaasi gudaha qolka xilliga falku u dhacay ay uga soo carartay iyada oo waliba markaasi rasaas uu ku furayay askarigii halkan falka ka geystay gurigan soo weeraray inkastoo alla uu ka badbaadiyay qoyskan in rasaasaas ay dhibaato u geysato adinkii ugu dambeeyay haduu dhacay waa la soo raacay wiilka baa nin kale saa looga kor qaaday kii kalena maan ugu imaanin iyo qorigii iyo sakiin iyo kabihiisii aan meesha laga bixiyo wiilka ninkana waa qaawanaa intaas uu joogay surwaalkii ciidamada buumihiina wuu xirnaa intaasna surwaalkaa u taagnaa kabihiisiina meeshana laga qaaday qorigana meesha laga qaaday tuuriyada haddaan bilownay waa la soo bixiyay mootaal saar mootadii aan ku hubsanay saldhigga dhaqaatiirta isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo loo geeyay wiilka ayaa xaqiijiyay in wiilka fal kufsi ah loo geystay sida ay inoo sheegtay hooyadiisa saasi hooyo arintoo dhacday haddana maanta CAD isbitaal Madiina la geeyay isbitaal Madiina hooyo waxa la yiri wiilkan ninkan wuu fara ku xumeeyay sidii baa la soo gudbiyay misna CAD aan loo gudbiyay CAD aan ninkii qaabishay maanta oo xareysay walow uu xiran yahay ninkii falkan geystay hawshan ay gacanta ku hayaan hay'adda CID-da iyo sidoo kale hay'adaha ammaanka ee dalka haddana Cabdisalaan yare ayaa dhibana la ah falkan ka baxsan diinta anshaxa iyo dhaqanka suuban ee loo geystay waxaana hooyadiis ay u dalabtay in wiilkeedu uu cadaalad helo ninka hadda maadaama uu xiran yahay hadda maanta CID-da igu jiro waxaan ku faraxsanahay inaan wax la ii qabto oo dawladda Soomaaliya wax ii qabato hooyo Soomaaliyeed ahay wiil Soomaaliyeedna waayo yaa hooyo aminkaygana ma sugnaani xaal gurigayga ma hooyin habeen horena gurigayga uma hooyin laba meelood aan xalay kala seexday dhafar saa'id aan waan iga muuqda iyo dhibaato saa'id ah gurigayga waa u jeedin falkan kufsiga ah oo ka dhacay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir waxaa ka horreeyay fal isugu jiray kufsi iyo dil loo geystay Allah u naxariistay Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar yar oo sanadkan ka qarin jabisay dugsi sare isla markaana nolosha hami sare ka lahayd waxaana falalkan aad u cambaareeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida kuwaas oo ku tilmaamay in ay yihiin qatar soo fool loona baahan yahay in wax badan la iska weydiiyo